waa maalin ka mid a maalmaha Ilaahay waxaan soo aaday magaalada aniga oo wata taksigaygii gaar ahaan waxaan si toos ah u soo aaday xaruntii taksiyada markii aan ku soo dhawaaday ayaan waxaan arkay booliis meeshii taagan aniga oo aan wax shakiya muujin tuhunna igelin ayaan waxaan si toos ah u imid xaruntii waxaan waayay wax taksi oo meesha taagan booliisku waxay ugu amreen inaan gaariga joojiyo ka soo dago waxay iga qaadeen dhammaan dukumeentiyadii aan lahaa ee caddaynaya inaan taksiga leeyahay ruqsadna u haysto in gaari wadista markii ay xaqiijiyeen intaasi kadib waxay ugu yidhaahdeen shirkadda aad u shaqaynaysay waxaa lagu haystaa dembi waa la xiray dhammaan taksiyadeen waxay jiraan saldhigga adigana waxaad noo raaci doontaa saldhigga waxaan ku idhi maadaama aniga aanan lahayn wax dembi ah maxaa iga quseeya inaan aado saldhigga haddii shirkadda aad dembi ku haysataan la xisaabtama iyada anigana waxaan aadayaa shaqadayda waxay ugu yidhaahdeen waxaad haysataa ruqsad ay shirkadda ku siisay waxaadna ku shaqaysataa sidoo kale magaceeda marka waxaad u baahan tahay inaad saldhigga tagto si go'aan looga soo saaro waxa lagu samayn doono taksiyada kale runtii ima farxad gelin aadista saldhigga waayo waxaa jira wax badan oo aysan dadka ogeyn oo igala dhexeeya aniga iyo saldhigga laakiin maadaama boolisku hadda ay hayaan waan ku qasbanay inaan saldhiggii tago markii saldhigga aan imaaday ayaa waxay ishaydu qabatay taliyihii ku soo dhowow qisadii maalintii ilaah iyo qunsulkii Cameroon qaybteedii 3 oo aad kala socotaan kanaalka cilmi kororsi haddii aad naga cusub tahay fadlan saar subscribe si aad ula socoto qisooyinka kale soo socda siina gaarsii asxaabtaada daawasho wacan iftikhaar oo wali wada aqrintii warqadda ayaa waxaa ka soo dhex galay aabihiis waxa uu ku yidhi wiilkaygiyow aqrintu halkaa ku jooji waxaan rabaa in aan kuu sheego aad si fiican u fahanto waxa igala dhexeeya taliyaha iyo labadii warqadood ee aad hore u soo aqrisay waxa ay ahaayeen iftikhaar waa uu aqbalay waxa uuna joojiyey aqrintii wuxuuna markan u dhag raaricinayaa waxa uu aabbihii u sheegi doono odaygu waxa uu ku yidhi wiilkiisa wiilkayga iftikhaarow aniga iyo hooyadaaba waxaan isku fikir ka ahayn in dhammaantiin laydinka qariyo sirtan wuxuu ujeedkeennu ahaa in marka aad weynaataan oo aad qaan gaartaan isku filnaashana gaartaan la idinla wadaaga sirtan waayo hadda ma xamili kartaan waxaana suuragal ah inaad dhexdiinna isdagaashaan aabbo adaa gacnahaaga ku raadsaday wixii aan kaa qarinaynay waxaad u haysataa weli in ay yihiin wax ay ahayd inaad mar hore ogaato oo lagaa qariyey waxaad se ogaan doontaa markii si sax aad u ogaato iyo xaqiiqda in aan ku saxnin waxa aan samaynay wiilkayga iftikhaarow aniga iyo hooyadaa waxaan ahayn laba qof oo isku fasal ah oo ilaa yaraantoodii is yaqiinay waxaan ka dhashay aniga reer hodan ah aabbahay waxa uu ahaa nin ganacsado ah oo lacag fara badan haysto waxaanna ahayn qoys aad u tiro badan hooyada iyadana waxa ay ka dhalatay qoys aad faqiir u ah xataa ma awoodin mararka qaar inay iibsato buwaagta wax lagu qoro laakiin adeerkeed ayaa waxa uu ahaa nin dawladda u shaqeeya waxa uu haystay lacag mana jirin wax caawin ah oo cidda siin jiray mar waliba waxay iga caban jirtay adeerkeed siduu ula dhaqmo waxay dareensiin jirtay in uu ula dhaqmo sidii qof addoon ah oo kale ama uusan garanaynin salaanta kama uusan qaadi jirin mararka qaarna wuu u diidi jiray inay guriga soo booqato aniga waxaan u muujiyey hooyada oo aan markaa saaxiibbo ahayn garab iyo hiilo waxaan u samayn jiray dhammaan waxa ay u baahan tahay markii aan soo gaarnay dugsigii dhexe ayaa aabbahay waxa uu go'aansaday inuu ii wareejiyo iskuul kale oo lacagtiisu qaali tahay waxbarashadiisuna fiican tahay aniga waxaan soo xusuustay hooyada rafaadka ay ku jirto iyo dhibaatada haysata haddii aniga iskuulkan aan ka wareegto way caddahay inaysan waxbarashada sii dhammayn doonin aabbahay waxaan ku yidhi aniga kama wareegaya iskuulkan ama waxbarashada oo idil ayaan ka tegayaa wax kasta uu sameeyey aabbahay wuu ku guuldarraystay inuu iskuulkii uu rabay ii wareejiyo aabbahay oo aan weli ka quusan inuu iskuulka ii wareejiyo ayaa waxa uu fursad ii siiyey inaan dugsiga dhexe halkan ku qaato
wuxuuna ii sheegay marka aan gaaro dugsiga sare in uu ii wareejin doono iskuulka wanaagsan haddii aan diidana uu i xiri doono. hooyada waa ay ogeed aniga iyo aabbaha waxaana dhex maray. markii aan soo gaarnay dugsigii sare waxaan ku khasbanaaday inaan raaco amarka aabbahay oo aan u wareegto iskuulkii uu isaga jeclaa. waxaan meeshii isku macsalaamaynay hooyada waxaana ku heshiinay in aan mar weliba caawin doonno waxay u baahan tahayna ila soo wadaagi doonto si aan u garab istaago inta karaankayga ah. waxbarashadii ayaan dhammaynay inkastoo labada iskuul ay kala gedisnaayeen. markii la gaaray xafladdii qalinjibinta oo isku maalin ahayd ayaan waxaan ka soo dhuuntay middaydii waxaana imitii hooyada. hooyada waxa ay ahayd gabar waxbarashada aad ugu fiican, waxayna noqotay kaalinta koowaad ee iskuulka. xafladda waxaa lagu martiqaaday adeerkeed, waa kii aan weligeed waxna tarin, iyadana ihanaysan jiray. markii khudbadii la soo gaaray uu isaga lahaa, waxa uu bilaabay inuu ammaano gabadhiisa, waxa uuna sheegay in intii karaankiisa oo u awooday uu garab istaagay gabadhiisa, maantana mirihii uu sugayay u soo baxeen. waxa uu u yeedhay gabadhii. markii ay xafladdii meeshii masraxa soo kortay, gabadhii inta ay soo boodday ayay waxay ku tiri, beenaale khaa'in ah, weligayna wax ima tarin, laakiin waa xaqiiqo inaad tahay adeerkay. anigana intaan soo boodaan ku iri, waa runteed, waad dulaysan jirtay, xataa gurigaaga inay soo booqato waad u jiidi jirtay. halkaasi waxaa ka bilowday isbeddelkii saxda ahaa ee ku dhici lahaa noloshayda, laakiin aniga wax war aan u haayo ma jiro. waxaa kor iga daawanaya oo ila socday wiilashii uu dhalay odaga, midkood waxa uu ahaa booliis sarkaal ah. markii ay xafladdii dhammaatay waxaan isa soo macsalaamaynay hooyada. waxaan ku idhi, dib ayaan iska arki doonnaa insha allah. waxaan toos u soo aaday xaafaddaydii, waxaana u imid qorshe cusub oo aabbahay u deggan oo aanan horey u sii ogayn. wuxuu aabbahay ii sheegay inuu ii diyaariyey waxbarasho dibadda ah, uuna jecel yahay inuu arko aniga oo ah injineer dhismo. inkastoo arrintaasi aanan ku farxin, haddana waan ku qasbanaa inaan raaco amarka aabbahay. waxaan isku dayey in aan hooyada la wadaaga arrintaa inta aanan bixin ka hor, laakiin nasiib darro meel kasta oo aan galay waxaan waayay hooyada jaan iyo cirib meeshii ay dhigtay. ugu dambayntii waxaa la gaaray safarkaygii waxbarasho ee dibadda. waan dhaqaaqay anoon dhowr bilood isha saarin hooyada. waxbarashadeedii markii aan soo dhammaystay waxaan ku soo laabtay dalkaygii hooyo, aniga oo ah injineer dhismo sida aabbahay jeclaaba. nasiib darro dhowr maalin kadib waxaa xanuunsaday aabbahay, waxaana la galay isbitaal. 3 bil oo xanuun iyo rafaad ah kadib waa uu geeriyooday aabbo, allah u naxariistee. wiilkayga Iftikhaarow, halkan si fiican u dhegayso. waa halkii noloshaadu isbeddelkeedu ka bilaaban lahaa adigana. waa meeshii aad ku qaadan lahayd go'aanka saxda ah. waa halkii aad ka ogaan lahayd sirta dahsoon aan weli laguu sheegin. wiilkaygiiow, aabbahay marka uu dhintay kadib waxaan bilaabay inaan hooyada raadiyo. hamigaygii ujeedkayga waxa uu ahaa inaan guursado. waan is aragnay, laakiin waxay ii sheegtay in reerkooda go'aansadeen in si qasab ah loogu daro taliyihii booliska iyo adeerkeed dhalay. waxaa wejigeeda ka muuqday rafaad iyo murugo aad u fara badan. waxay ii sheegtay inta aniga waxbarashada aan ku maqnaa iyadana inay loolan iyo dagaal kula jirtay ka hor imaatinka guurkaasi qasabka ah. ma taqaano waxa ku dhici doona, laakiin waxaa loo sheegay in bisha soo socota si qasab ah loogu dari doono booliskii u dhalay adeerkeed oo hadda noqday taliyaha booliska degmada ay degan yihiin. Iftikhaarow, aniga ma haysan wax awood ah aan hooyada ku badbaadin karo. aabbihii aan garab ka dhigan lahaana wuu iga dhintay. waxaa iga soo hartay oo keliya anigana quusasho iyo inaan ilaahay u baryo oo keliya. waan kala tagnay, waxaana si qasab ah loogu daray taliyihii booliska oo ahaa in adeerkeed. waxaan maalinkii dambe arkay hooyada oo alaab sidata, aad u rafaadsan, qof waliba iska qarinaysa oo meel luuq ah fadhisa. waxay ii sheegtay inay soo carartay, go'aankeedunu yahay in ay waddanka isaga baxdo, halkanna ay ku sugayso ruux ay ku ballameen inuu dalka dibaddiisa u dhoofiyo. Iftikhaarow, arrintaas aniga aad ayay iga nixisay. waxaan ku idhi, maya, meelna aadi maysida, soo baxa. waxaan keenay guriga,
waxaan u soo cararay nin saaxiibba aan ahayn oo qareen ahaa. waxaan u sheegay arrintii oo idil. waxa uu ii sheegay in aan u baahanahay in aan qabsanno qareen aad u weyn, qarash fara badanna aan bixinno si aan uga guulaysanno taliyaha booliiska. wax alla wixii aan haayay ayaan ku bixiyey badbaadada hooyada. maxkamaddiina waxa ay xukuntay in uu hadda furo, wax la isku soo raacan doonana aysan jirin. hooyada waa la furay iyada oo aan waxba haysan. hooyada aad ayay ugu faraxday arrintaasi, waxayna la ahaydba sida ruux dunida hadda ku soo biiray oo kale. waxa ay niyada gashatay in hadda wixii ka dambeeya nolosheedu sida ay jeclaad u noqon doonto. bannaanka markii aan soo wada baxnay waxaa noo taagnaa taliyihii, ninkii iyada furay. wuxuu si gaara igu yidhi aniga, haddii aad isku daydo inaad naagtan guursato, in noloshayda meel xun aan ku dambayn doono, shallaaytana aan ku noolaan doono. iyadana waxa uu sheegay inay iga fogaato ninna ay isu guursan. waxaa markaa noo yeeray qareenkeennii, wuxuuna noo sheegay inay qasab tahay inaan isbitaalka si toosa u aadno si loo ogaado in gabadhan ay uur leedahay iyo in kale. isbitaalka markii aan tagnay ee baaritaankii la sameeyey kadib, waxaana loo sheegay in hooyadaha ay uur leedahay. qareenku waxa uu noo sheegay markaa kadib in ay ahayd in aan baaritaankan hore u soo samayno inta aan furiinka dhicin ka hor. hadda maxkamaddu waxa ay saxiixday in aan waxba loo raacan doonin ninkaasi, wixii maanta ka dambeeyana mas-uuliyadda cunugan ay qoorta u saaran tahay labadeenna. waxaan u soo kaxeeyey gurigayga, waxayna la joogtay ilaa ay ka dhasho. wiilkayga Iftikhaarow, i cafi hooyadaana cafi. wallaahi labadeennaba waxaan u haysannay in farxaddaadu ay sidan ku jirto, in farxaddaada iyo horumarkaagu tahay in aan marna laguu sheegin arrintan ilaa aad ka weynaato. Iftikhaarow, wiilka maalinkaa la dhalay waa adiga. magaca hooyada ayaa kuu bixisay. aabbaha saxda ahna waa taliyaha booliiska. waa cadowgayga koowaad, waa in adeerka hooyada. ninkaas ayaa ku dhalay. waxaa aniga ii tahay wiilkayga saxda aan soo korsaday. Iftikhaar oo arrintaasi aad uga naxay, lama filaanna ay ku noqotay, wax uu sheegana garan waayey, istaagay oo fadhiistay. yaab. waxa uu ku yidhi, aabbo, adiga may dhalin miya? waxaa loogu jawaabay, maya, waan ku soo koriyey taliyaha ku dhalay. laakiin waxaan kaa codsanayaa inaan kuu dhammaystiro sheekada inteeda kale. Iftikhaar oo aad u ilmaynaya, murugta iyo xanuunka hayana aan la qiyaasi karin, wax uu sheegana aan garan karin, marna aan ku qanacsanayn in ninkaasi xasidka taliyaha booliiska uu aabbihii yahay, ayaa waxa uu ku yidhi, aabba ii wad aan dhegaysto inta dhiman. xanuun kale iima harine, ii dhammaystir aabbo. odayga oo isagana sidoo kale aad u ilmaynaya ayaa waxa uu sii waday sheekadii. waxa uu yidhi,